militariga waddanka Israa'iil ayaa weerar dhanka cirka ka geystay dhulka buraleyda ee Golan Heights oo ka tirsan waddanka Suuriya sida ay ku waramayaan warbaahinta iyo militariga Israa'iil. wakaaladda wararka ee Suuriya ayaa sheegtay in weerarka loo adeegsaday gantaalo ay Israa'iil la bartilmaameysatay deegaanka Tel al-Shar. sidoo kale wararka ayaa intaas ku daraya in bartilmaameedku waxa gaari militari oo halkaasi marayay waxaana ka dhashay khasaare dhaawac ah. militariga Israa'iil ayaa qoraal ay soo dhigeen baraha bulshada waxa ay ku sheegeen in weerarkaasi ay kaga jawaabayeen gantaal liidka diyaaradaha ah oo galinkii hore ee Isniinta lagu riday mid ka mid ah diyaaradahooda. warkan ka soo baxay Israa'iil ayaa imaanaya kadib markii telefishinka qaranka El Akhbariya laga baahiyay in hal askari uu ku dhintay mid kalena uu ku dhaawacmay kadib weerarkii ka dhacay gobolka Quneitra. Ra'iisul Wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa Isniintii sheegay in maamulkiisu diyaar u yahay in ka jawaabaan gardarro walba oo kaga timaada dhanka Suuriya.